wararkii ugu dambeeyay ee dalka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa laga joojiyay ciidamo tirabeel ah ee ku soo daabulayeen magaalada ana iska reebay baabuur Cabdillah oo qoran shirka saaran yahay inuu daba kaco jidka isku wareegay iska reebay jahwareer culus ayaa ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii diyaaradihii siday ilaaladii gaarka ahayd ee madaxda Jubaland iyo Puntland laga celiyay hawada ila wareedii ayaa noo xaqiijinaya in amarka celinta diyaaradahan uu toos uga yimid dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen habraaci amni ee hore loogu heshiiyay ee ay ku heshiiyeen gudiyada farsamada labada dhinac sidoo kale waxaa la joojiyay duulimaad rayid ah oo ka soo duula magaalooyinka Garowe iyo Kismaayo taasi oo dhalisay jahwareer iyo walaac soo wajahay rakaabka wararka aynu helna ayaa sheegaya in habraacyada amni ee hore dhinacyadu ugu heshiiyeen ay qeexayeen in mid kasta oo ka mid ah madaxda maamul goboleedyada loo ogol yahay 40 askari oo ilaalo ah kuwaas oo 10 ka mid ah ay hub culus aysan wada karin isla markaana xogta askarta iyo hubkooda hore loogu heshiiyay in loo gudbiyo taliska NISA xubno ka tirsan gudiyada golaha mustaqbalka ayaa tilaabadan dhinaca kale ku tilmaamay heshiis jabin iyagoo sheegay in dhankooda ay si buuxda u fuliyeen wixii lagu heshiiyay halka ila kale ay xaqiijinayaan in go'aanka kama dambaysta ah uu ka yimid heerka ugu sarreeya ee gudiyada farsamada ama madaxweynaha Soomaaliya arrintan ayaa sii xoojinaysa xiisadda siyaasadeed iyo tan amni ee la xiriirta imaashiyaha madaxda maamul goboleedyada ee magaalada Muqdisho si kastaba lama oga go'aanka ugu dambeeya ee ay qaado doonaan madaxda Puntland iyo Jubaland kuwaas oo ilaaladoodii hawada laga celiyay xilli ay ku wajahnaayeen Muqdisho